بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي soo dhawaada ku soo dhawaada Hagarlaw Academy iyo tutorial aan maanta ka bixinayno my forex funding programmeskeeda waliba evaluationka ayaynu aad u dul istaagi doonaa qaabka loo furto iyo accountsku intay u qaybsamaan marka hore waxaan ku horeynaynaa waa maxay my forex funding my forex funding waa shirkad bixisa akoomadaas oo traderska u sahlaya in aanay capitalkoodii ama lacagtoodii riski garayn oo ay fee yar bixiyaan akoonkay ku xiran tahay feedu kadib feeda kolkay bixiyaan ay u sahlayaan inay u dhiibaan laba akoon ama laba face oo kala horeeya labada face waxay leeyihiin shuruudo iyo waxyaalo la iska ilaalinayo ama traderku iska ilaalinayo iyo waxyaalo laga rabo inuu gaaro target uu gaaro and then marka uu labada face ku gudbo face saddexaad oo life account ay u dhiibayaan akoonka uu ku shaqeynayo lacagta uu ka soo saaro ayaa waxa uu traderkaasi qaadanaya bisha u horeysa 75% bisha xigtana 80% bisha xigtana 85% tusaalahaan haddaad akoon $10,000 qaadatid oo aad ku shaqaysid oo labada face intaa soo dhaaftid marka aad shaqada gaadhid aad tusaalahaan $1,000 oo kale ku dartid 10% hadhow waxaad leedahay $800 bisha labaad bisha koowaadna 700 aduu bilaha ku xiran laakiin adalisa in dhahno $800 leedahay 200 shirkadda leh waxa sidoo kale bisha u horeysa payment ku soo raaci doona refund marka my forex funding ma legit ba ma scam mise waa scam ma runtooda oo dadka lacagta ma siiyaan mise waa khiyaali shirkad ma tahay mise waa dadka lagu dhacaa inta maanta kama hadli doono waayo haddaad haddeer isweydiinaysid my forex funding ma run baa misaabeen I think information badan ayaad u baahan tahay wacaalkaaga inaad korsida ayaa u baahan tahay keli waxa kugu filan discordkooda tag kadibna qaybta payout proof ka tag dadka lacagaha qaadanaya ee soo proof garaynaya intaa kadib telegramkaaga Hagarlaw Academy waad iman kartaa ayadana waxaa kasoo helaysaa intaasoo arday oo lacag kala baxay my forex funding aniga oo intaasoo lacag kala baxaya marka waa 100% kambaniga waa true waana kambanigii abis ugu fiicnaa waan u malaynaya kolay dadku waxay dhahaan FTMO ayaa ka fiican laakiin my forex funding aad baan kugu recommend gareyn lahaa haddii qof disciplinekiisa iyo risk managementkiisu dhisan yahay aad tahay okay intaas waa introga ama introductionka waa kasoo gudbaynaa marka aad timaadid pagekooda 3 akoon bay bixiyaan saaxib 3 different accounts ayay bixiyaan akoon koowaad waxaa loo yaqaanaa Rapid baa loo yaqaanaa waa beginnerska ugu talagalan bay dhahaan oo tusaale ahaan waxaa qaadanaysaa let's say akoona lagu dhiibayaa demada waxaa samaysid 12% leedahay 12 tusaale haddaa 10 kun qaadatid oo $100 samaysid $100 baa ku leedahay so si aad xoogaa lacag oo la soo baxid $100 oo la soo baxid waa inaad $1,000 wax ka badan samaysid marka xoogaa waxaan u malaynayaa waa dhib badan yahay oo marka loo eego lacagta helaysid adoo $1,000 sameeyay baa $100 wax ka yaraa $120 la soo baxaysa so waa dhib badan yahay laakiin isaga wax challenge ay waxa male ma rabo inaan Rapidka ka hadlo oo aan aad u dul istaago akoonka ku xiga waa evaluation akoonka ku xiga waa evaluation waa experienced evaluationku waa akoonka ugu fiican waana akoonka ugu I think qofka hadduu leeyahay aqoon iyo khibrad ku filan waa akoon wax badan noloshiisa ka kaafin karo waa akoon isku filaasho ku gaari karo evaluationku waa akoonka labada face ka kooban oo face 1 iyo face 2 waa qaadanaysa waa kan prove your experience with our evaluation account experience-gaaga waxaa ku proof garaynaysaa labada face lagu dhiibay quick two face verification process laba quick oo laba face ayaa lagu dhiibayaa generous drawdown limits iyo drawdown lagu siinaya profitkaaga waxaa qaadata up to 85% accelerator-kuna akoonka saddexaad isagoo markaad eegtid wax dana kuguma jirto oo waxaa laga qaadanayaa $100 baa laga qaadanayaa akoonka u yar oo diiwaangelina waxaa lagu dhiibaya akoon $1,000 oo bilaa challenge ah okay $1,000 haddaa $100 riski garaysid oo lumisid oo 5% ah I mean 10% akoonku iska xiraya so $100 aad dhiibatay oo isku diiwaangelisay baa waxa u leedahay inaad lumin kartid so ma $100 barok ku shubto bay dadka badan dhahan kolley lama jecla marka lacagta lagu xiray lacagta lagu diiwaangelinayo waa aad u badan tusaale ahaan 10,000 oo kale haddaa rabtid $10,000 $1,000 ay kugu xirayaan $1,000 ayay kugu xirayaan oo
inaad bixisid $1 haddaad bixisid 10,000 laguu dhiibo dee hadhow limitkaaga guudna waa $1 so $1,000 aad dhiibatay unbaa limit lagaga dhigayaa khasaarin karta so isagana meesha waa ka saarana marka labada akoon meesha ka saarana kanin aad u dul istaagana evaluation okay evaluation haddaan ku dhufto start now aan dhaho muxuu leeyahay evaluationku introductionka waa iska akhrisan kartaa waa labadii step waa xawya 10,000 waa payoutku waa 85% $200,000 akoona u weyn 300,000 bay hadda kusoo dareen balaa scalena lagu sameynaya waxyaalaha okay rules waa kuwa 6 points to remember lixdaa meelood ayaa xasunaan doontaa 5% daily drawdown tusaale ahaan haddii markasta 10,000 baynu kusoo qaadanayna example 10k baa lagu dhiibay 10k-ga 5%giisu waa $500 so 5% drawdown haddii aad hal maalin samaysid hal maalin hadda 500 khasaarisid akoonku kaa gubanaya waa daily drawdownka khasaare keliyana maahane waxaa ku jira waxaa loo yaqaano equity iyo waxa kale jira waxaa loo yaqaano balance marka equitygu waa traderka kuu furan ee aadan weli xirin waa equity waa unrealistic loss ama profit balanceiguna waa traderkii markaa xiratid loss ama profit aa ku xidhid so haddii trade aad qaadatid uu kaala soo laabto lase $500 minus uu taabto oo soo noqdo akoonka waa qarxis haddaad hadhow profit kaga baxa saa u fahme marka ruleka aad u baahan yahay inaad u fahantaan inteeda akoomada qaadan talabaadna waxa weeye qodobka labaad u baahanta inaad xasuunaatid waa overall drawdownka 12% aa leedahay 12% simply akoonka 10,000 iyo 10,000 waa $1,200 so haddaa akoonkaaga qarxisid $1,200 aad ku baabi'isid ama ay ku hoos maro si guud baan sheegaya maaha maalinle si guud hadduu $1,200 ka hoos maro akoonkiisna waa kaa gubanaya macnaheedu waxa weeye akoonkaas waa kaa qarxay waa lagaa xiraya oo qaabka u xisaabinaysid haddaad tusaale ahaan rabtid akoon 20,000 12%giisu muxuu noqonayaa maxay noqonaysaa 12% markaa xisaabinayo waa 12 oo la hoos dhigay 100 oo lagu dhiftay akoonkaa soo saaray waa maxay 20,000 saa u xisaabso akoonkaas saa u xisaabso $20,000 waxay noqonaysaa adigu $2,400 oo riski ah haystaa 20,000 haddaa qaadatid so $2,400 haddaa riski garaysid ay kaa gubato 30 cisho oo facebooka aad ku jirtid waa akoonka kaa xiraya akoon kasta saa u xisaabi profit target profitka lagaa rabo waa 8% marka loo eego riskiga haysatid waa 12 waxaana lagaa rabaa 8% so miyaanay wax fiican ahayn macnaha waxaa lagaa rabaa akoonka 10,000 haddii aad qaadatid inaadan maalin qura khasaarin 500 inaadan maalin qura khasaarin overallka aadan khasaarin si guud 12% $1,200 waxaana lagaa rabaa 8% oo u dhiganta $800 $800 haddaa ku dartid akoonka 10,000 laguu dhiibay aa ka dhigtid 10,800 waad baastay phase 1 okay oo labadan aa ilaalisid dee labadan aa soo ilaalisid waxaa rabaa ruleska inay wada kulmaan aa la rabaa okay waxa kaloo lagaa rabaa ama ruleska ka mid ah phase 2ga waa 5% keliya phase 1ka waa 8% phase 2gana waa 5% oo tusaalahaan akoonkii 10,000 ahaa waxaa lagaa rabaa $500 inaad ku dartid phaseka labaad oo 60 cisho isna haystaa okay phaseka koowaad ee 30 cisho ah 8% laga rabo haddaan maalinta u horeysa 8% ku helo ka waran maalinta horeysa haddaa 8% ku heshid waxaa lagaa rabaa inaad sugtid ugu yaraan 5 cisho 5 maalmood inaad dhamaysid 5 trading days waa in akoonka haysatid si aad u gudubtid 8%-ga gaadh ugu yaraan 5 daysna trade gare war halkaa waa fahanteen ugu yaraan waxaa laga wadaa tusaale ahaan 5 maalmood oo kala duwan oo isku xigta ama isku xigin 5 days oo kala duwan maalin kasta waa inaad trade furtaa si akoonkaagu u gudbo marka sometimes hal maalin qof ku baasi kara sometimesna wuxuu ku baasi karaa 5 cisho sometimes wuxuu ku baasi karaa 3 cisho marka evaluationska haddaa soo gashid minimum trade days waxaasa lagu gaadin waxaa samaysaa uun 30 cisho haystay si waafi u qaado waxba ha degdegin marka 5 trade days waa inaa ugu yaraan ku baasin kartaa tusaale ahaan haddaan maanta akoon qaato oo 5 cisho gudahood ku baasiyo macnaheedu uma baahni 30 cisho inaan sugo waxaan u gudbayaa phase 2gii baan u gudbayaa okay no trading restrictions wax restriction ah kuma saarna oo waxa weeye trade your forex profit account either way recognize your time we don't limit okay waxay ku dhaheen forex-kaaga say tahay ugu trade gare
sayska rabti ku talagal tusaale ahaan lotka lagu xidhi maayo akoonka tankeyga ah lot 0.5 ku talagal ama lot 2 ku talagal cidna kugu xidhimayso limit kuma saarna oo aad ku talagalay dootid waxaanu ku recommend gareynaa way dheheen laakiin inaa consistency la timaadid recommendation macnaha kula talinaa oo kale weeye risk managementgaagana aad improve garaysid si aad akoonka ugu baasay sidoo kale be aware all the rules before starting ruleska waa inaad fahantaa intaadan akoon qaadan marka lixdaa rule inaa xasuusnaatid adiga ayaa lagaa rabaa okay phase 2ga waxaa haystaa 60 days baa haystaa marka 5%ga lagaa rabo oo halkani kuugu qorantay 60 calendar days kanna waxaa haystaa 30 maalmood oo calendar period macnaha maalmaha caadiga ee jimcada sabti axad baa ku jiraan okay waxyaalaha faa'iido uu kugu leeyahay evaluationku waxa weeye qodobka koowaad ilaa iyo 85% baa la soo bixi kartaa benefitska faa'iidooyinka kugu jira 85% oo boroskaaga yeelanaysaa qodobka labaadna waxa weeye in lowest target in the market lowest target baa lagu sameeyey oo 8% target laga rabaa phase 1ka iyo 5% oo phase 2ga ah sidoo kale waa low cost lacagtuna waa yartahay oo waa soo eegi doonaa lacagta oo cost ahaan $10,000 ku qaadanaysaa $100,000 waxaa ku qaadanaysaa $500 and then this one waa free retakes and free extensions dad waxaa jira akoonka qaybta koowaad iyagoo aan gaarin 30 maalmood ay ka dhammaato 30 maalmood iyagoo gaaray aan gaarin 8% loo diray ay maalmihii dhammaadaan markaasoo kale free retakes waxaa ku siinayaa inaad dib u qaadan kartid one free extension iyo hal maroo dheeri ah inaa macnaha extension codsan kartid akoonkii 5% plus haystaa waxay ku siinayaan extension waqtigii 3 cisho kugu daraya ama free retake ay ku siinayaan sidoo kale no tele restrictions wax tele restriction ku saarna beerka rabto ayaa ku talagarayn kartaa crypto waad ku talagarayn kartaa trade-ka rabtidna waa qaadan doontaa get your fees back lacagtaada waa lagu soo celin doonaa oo markaa 500 tusaalahaan ku qaadatay $100,000 ama 10k aad ku qaadatay $8 lacagta u horeysay ee profitka aad la baxaysid baa lagu soo raacinayaa $85 cidna wax ku fali mayso intaas waa benefitska uu leeyahay profit share-ku waa 75% bisha u horeysa iyo 80% bisha labaada iyo 85% bisha saddexaadna bi-weekly pointigu wuxuu ka bilaabmayaa bi-weekly isna jira oo waxyaalaha ku fiican yihiin forex funding ka mid ah in aad marka profitka koowaad bisha koowaad profitka la baxdid waxaad samayn kartaa bi-weekly oo labadii weekba mar baa lasoo baxaysaa so waa lacag aad iyo aad u sahlan baan dhihi karnaa okay akoomadooda waa kuwan 5,000 ay dhawaan kusoo dareen iyo 300,000 kaliya ishaynu maraynaa akoon haddaa rabtid inaad qaadatay 5,000 ah labadii horta markasta niyad waxay uga haysaa dhammaan accountskan percentage waa ka siman yihiin oo phase 1 kan waxaa laga rabaa 8% phase 2 kan waxaa laga rabaa 5% live-ka markaa gaadhid percentage lagu xidhmaayo $100 haddaad siisid oo aad joojisid oo aad la soo baxid adigaa xaq u leh intaad doontid inaad tirigelis adigaa xaq u leh daysna male live-ku sidoo kale male target lagaa rabo oo lagu yidhi lacagta kula soo baxo okay akoonka u hooseeya waa 5,000 targetka lagaa rabo waa isku wada midoo waa phase 1 waa 8% phase 2 waa 5% drawdownka maalintii lagu ogolyahay waa 5% oo $250 ah si guudna $600 ah haystaa inuu akoonkaaga qarxo haddaa gaadhid ka hoos martid macnaha meydis 600 leveragekaagu waa 100 waa leverage aad u weyn oo 5,000 1.5 waa saaran kartaa laakiin waa riski okay lacagta isku diiwaangelinaya waa $49 tobanka ku waa kan waxaa lagaa rabaa phase 1ka 8% 800 phase 2gana waxaa lagaa rabaa 500 waa kan oo lacagta khasaaraha maalintii aad geli kartid waa $500 si guudna 1,200 aa lagaa rabaa inaadan hoos ka hoosban $84 lagu diiwaangelinaya leverage waa same okay aan labadan ka boodo maadaama wax isku mid yihiin 100,000 aan okay 100k akoonka ah phase 1ka waxaa lagaa rabaa $8,000 waa 8% phase 2gana waxaa lagaa rabaa $5,000 oo waa 5% dhammaan waa isku mid drawdownkaaga maalinlaha 5,000 yuu gaarin sidoo kale overall drawdownkaaguna 12 yuu gaarin lacagta lagaa rabo refundable fee-ga ana waa $499 waa $500 okay su-aalaa timi su-aashu waxay tahay akoonkaygi waxaan qaatay 10,000 waxaan gaarsiiyey $700 aan ku daray
$10,700 soo ma facebookiina baas maxaa iga dhiman ama life baan ba joogaa 10,700 buu maraya imsa khasaari karaa war daily drawdownkaaga my forex funding waxay u xisaabisaa lacagta kuugu jirta 5% ku dhufo tusaale ahaan 10,700 5%geedu wuxuu noqonayaa haddaa isku dhufatid aan meel cad tago 10,700 xaggan iyo 10,700 5%geeda ku dhuftay adi 5% maalintii khasaari lagu dhuftay 5 oo la hoos dhigay 5% ba dhigay 5 la hoos dhigay 100 saas isugu dhufanaysa la yarda u saaro adi waxay noqonaysaa 500 iyo 500 wax noocaas dollar ha khasaarin waa 5% lacagta joogtay 5% ku dhufo ha isdhihin 700 aa shaqaysatay waa khasaari kartaa iyo 500 lagu ogola 2,200 ha isdhihin maalin walba markaa subaxdii soo kacdid waxaad haysataa 5% akoonkaaga intuu doona ha maro haddii akoonkaaga khasaare yar galo tusaale ahaan 10,700 sama haysatid haddii khasaare yar aa gashid uu joogo akoonkaagu 9,600 dee $500 riski ama haysatid waa ka yaryahay ha ku khasaarin halka waxaa haysataa lagu dhuftay 5 la hoos dhigay 100 5% adigu ku dhufto calculator inta la soo baxay waxaa haystaa adigu 480 iyo dhowr dollar ba haystaa 480 dagaalidu ka qarxaya waa 5% akoonkaaga waxaad ku dhufanaysaa 5% intaasaa maalinta haysataa my forex fund iyagu waa sidaas okay inta haddaan intaa uga gudbo waa akoomadii intii kala duwanaayeen see laysaga diiwaangeliyaa baan tegaya tusaalahaan kasoo qaadin aan qaadanayo akoon 10 kuna waxaad u baahan tahay si aad isu diiwaangelisid laba qaybood aynu kala qaadanaa qayb hadda lagaga baahan yahay marka hore iyo wax lagaa rabo hadhow later hadda waxa lagaa rabo waxa weeye in kaad ay haysatid bangi haddaadan haysan qof haysta oo kuu furi karaa idaasan maata khasab maaha magacaan ku qoranayo aniga iyo magaca akoon bankiga aan ka diray lacagta in isku mid noqdo khasab maaha marka waa kaad inay haysta haddaa rabtid adigu in aad furatid weeye haddii qof kale kuu furay iyadoo meesheeda sidoo kale waxaa lagaa rabaa in aad isdiiwaan gelisid bes haddeer weeye marka labada face ku gudubtid oo challenge-ga ah oo face 1 aad gudubtid face 2 na gudubtid oo lacagtii live-ka ahaa lagu dhiibay ee real-ka ahaa marka waxaa lagaa rabaa dhowr qodob oo ah passport ama ID card ID card ka tusaale ahaan waddankeena oo kale Puntland Somaliland Jubaland wuxuu rabaa ahaada ID card un baa lagaa rabaa Soomaaliya ID card un baa lagaa rabaa sidoo kale waxaa lagaa rabaa ama passport haddaad leedahay waxaa kaloo lagaa rabaa agreement-iga inaad saxiixdid iyadana video horaan kaga hadalay waa fudud yahay waxaa kaloo lagaa rabaa qodobka saddexaad ee lagaa rabo iyagana bank statement dhaqdhaqaaq tusaale ahaan banki account haddaad leedahay waxaa soo daawacanaysaa dhaqdhaqaaqii u dambeeyey haddii kalena warqad iyo bilinka aad ku bixisid tusaale ahaan biilka guriga korontadoo kale oo shaambad leh qurux badan baad qaadanaysaa ama notaya ka qoranaysa way fududahay kole inta u badan tiimka iyaga dad ka caawiya linkiga ka qaata linkiska laga qaadanaya akoomada iyo waxaana hoos ay ku reebaya marka ha ka welwelina insha allahu tacaala marka hadda markaas diiwaan gelinaysa haddaa kaan haysatid waxaa kusoo shubataa lacagta kusoo shubo waxaa samaysaa akoonkii markaan kusoo dhuftay halkanoo kale i keenay wuxuu yidhi ma MT4 baa rabtaa mise MT5 MT5 number 1 wey haddaa MT4 aa ku tirigarantid MT5 guur haddaa MT4 iyo MT5 mid kood rabtid inaad qaadid MT5 hadda qaado MT4 iska daa laga guuray intay doonto MT5 ka fiican hal mar aa ku dhufanaysaa akoontigii check out-ka kusoo baxaya okay check out-kii waxaa ii soo baxay xogtii halkaas taalla waxaan haystaa akoon sidee hal akoon iska hubi halkaa marba laba jeer dad ku dhuftaan oo laba akoon qaataan marka hal akoon MT5 ah waa $84 total $84 waxaa gelisaa marka koodhka waxaa gelinaysaa coupon koodhkeena walaalka hadda kaasaan isticmaalaa hadhow haddaan mid kale u bedelno waa idiin soo sheegi doonaa laakiin kaasaa gelinaysaa si lacagtii ay kaaga dhimato 5% waxaad haysanaysaa 5% discount ah baa lagu siinaya okay waa loading inta aan kasii sheekayno intan namekaagii hore first nameka ku qoraysaa second nameka Soomaaliya streetkaaga meesha degan tahay marka street inagu address iyo waxa badanaa ma lihiin xaafadda degan tahay iska qor salaanada la say xamaro kala degan tahay Shangani aad degan tahay Shangani ku qor and then kan NA iska qor townka cityga ku qor